wacan oo wanaagsan waa 30 bisha December 2014 maalinimo talaada magaceeduna waa Maxamuud Cumar Macalin ku soo dhawaada barnaamij gaar oo ka hadlaya taariikh nololeedkii madaxweynihii hore ee wadanka Ciraaq Saddam Hussein oo 31 bisha December 2006 xukun daldalaada lagu fuliyay hogaamiyihii shanaad ee Soomar wadanka Ciraaq wuxuu ahaa Saddam Hussein Abdulmajid al-Takridi wuxuu ku dhashay tuulada yar ee lagu magacaabo Al-Awja ee gobolka Tikrid 28 Abriil 1937 Saddam Hussein wuxuu ka dhashay qoys beeraley ah magaca Saddam oo macnihiisu yahay geesi waxa uu bixisay hooyada Saddam Hussein oo lagu magacaabo Tulfaax al-Musallat Saddam Hussein nasiib daro ma arkin aabihiis Abdulmajid wuxuuna aabihii geeriyay Saddam Hussein oo 5 bilood oo quraac jira Saddam Hussein kaliya waxaa la dhashay hal wiil oo asagoo 12 jir ah u dhintay cudurka kansarka dhimashadii Saddam Hussein aabihiis ee Abdulmajid waxaa soo food saartay Saddam Hussein qoyskooda dhibaato dhanka dhaqaalaha waxaana Saddam Hussein Abdulmajid al-Takridi lagu wareejiyay abtigiis oo markaas kamid ahaa ciidamada militariga ee dalka Ciraaq Saddam Hussein Abdulmajid al-Takridi wuxuu ahaa madaxweynihii shanaad ee wadankaasi Ciraaq wuxuuna jagada wadankaasi la wareegay 16 Luulyo 1979 wuxuuna hayay ilaa iyo 9 Abriil 2003 Saddam Hussein waxa uu noolaa laga bilaabo 28 Abriil 1937 markii uu dhashay waxaana xukun daldalaada gudaha wadankaasi Ciraaq lagu fuliyay 3 December 2006 wuxuuna jiray 69 sano madaxweynihii hore ee wadankaasi Ciraaq Saddam Hussein 1956 ayuu ku biiray xisbiga Ba'ath uu hogaami jiray 1958 bilood ayuu xirnaa kadib markii lagu eedeeyay inuu waday dhaqdhaqaaq dawladda looga soo horjeedo isla 1958 wuxuu ka qayb qaatay afgemigii la isku dayay in xukunka looga tuuro Cabdikariim Qaasim wuxuuna ka dhaawacmay lugta kadibna wuxuu u fakaday dalkaasi Syria wuxuuna ugu sii gudbay wadanka Masar Febraayo 25 1960 ayaa dil lagu xukumay isagoo dalka dibadiisa jooga 8 Febraayo 1963 waxa uu ku soo noqday wadanka Ciraaq Oktoobar 14 1964 ayaa la xiray waqtigaas oo socdeen ololaha looga soo horjeeday xisbiga Ba'ath sanadkii 1966 ayaa isagoo xabsi ku jira loo magacaabay ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga Ba'ath 1967 xabsigii uu ku jiray Saddam Hussein ayuu ka fakaday 1968 isagoo xubin firfircoon ka ahaa afgemigii waqtigaasi waxa uu mas'uul ka noqday nabadgelyada gudaha wadanka isla sanadkaasna waxa uu dhameeyay kuliyadda sharciga June 1972 waxa uu hogaaminayay qorshe lagu qarameynayay ilaha saliidda ee wadankaasi Ciraaq ee lahayd taasi oo waqtigaasi maamulayeen shirkado reer galbeed ah June 1979 madaxweynihii hore ee wadanka Ciraaq Saddam Hussein wuxuu la wareegay talada guud ee wadankaasi Ciraaq 17 September 1980 Saddam Hussein gabi ahaan wuxuu ka baxay heshiiskii uu kula jiray wadankaasi Iran kaasi oo ku saabsanaa dhanka xuduudaha 1975 la kala saxiixday 22 September 1980 waxa uu Saddam Hussein bilaabay dagaalkii Ciraaq iyo wadankaas Iran kaasi oo socday waqti aad u fara badan oo ay ku laadeen ciidamo badan oo kasoo kala jeeda 1988 Ciraaq iyadoo kaalmo ka helaysay ciidamada badda ee Mareykanka ayay dib u qabsatay dhulkii Iran kaga qabsatay dagaalkii socday intii u dhaxaysay 1984 ilaa iyo 1986 bishii Luulyo waxaa dhamaaday dagaalkii u dhaxeeyay Iran iyo Ciraaq labadii bishii Agoosto 1990 Ciraaq waxa ay qabsatay dawladda wadankaasi Kuwait 17 January 1991 ayaa in ka badan 30 dawladeed Ciraaq waxa ay ka saareen dhulkii ay lahayd dawladda Kuwait 1994 dhaqdhaqaaq militari ayuu Saddam Hussein ka sameeyay xuduudda uu la leeyahay gudaha wadanka Kuwait isla 1998 Saddam Hussein wuxuu gabi ahaanba eriyay shaqaalihii qaramada midoobaha ee joogay dalkaasi Ciraaq ugu dambeynna 2003 waxaa Mareykanka iyo xulafadiisa ay dagaal ku soo qaadeen dawladda wadankaasi Ciraaq iyadoo ugu dambeyn gacanta lagu dhigay madaxweynihii wadankaasi Ciraaq ee Saddam Hussein markaana aan eegno dhanka arrimaha dibadda iyo waxyaabihii uu ka qabtay madaxweynihii hore ee wadankaasi
waddankaasi Ciraaq Saddam Hussein. 1976 Saddam Hussein isagoo madaxweyne ku-xigeenka waddanka Ciraaq wuxuu booqasho howleed ku tagay waddanka Faransa wuxuuna Paris kula kulmay ama heshiis kula saxiixday madaxweynihii waddankaasi Faransiiska ee waqtigaasi 1976 Franco Mitterrand iyo waliba ku-xigeenkiisii waqtigaasi ee lagu magacaabay Jacques Chirac oo mar soo noqday madaxweynaha waddanka Faransiiska. sidoo kale ololihii uu galay Saddam Hussein kana sameeyay arrimaha dibadda waxaa qayb ka ahaa sanadkii 1979 Saddam Hussein wuxuu olole u galay hanti wadaagii Carbeed oo looga soo horjeeday heshiiskii sanadkii 1979 dhex maray Masar iyo Israa'iil. heshiiskaas uu garwadeen ka ahaa madaxweynihii xilligaasi ee dalka Mareykanka Jimmy Carter wuxuuna ka dhacay magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka. halkaas ayuu inooga eegaya barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa taariikh nololeedkii madaxweynihii hore ee waddanka Ciraaq Saddam Hussein oo 30 bishii December 2006 lagu daldalay gudaha waddankaasi. nabadgelyo.